kulan ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada jaaliyada dalkani Qatar ee ka soo jeeda magaalada Burco caasimadda gobolka Togdheer ayaa taageeray guddiga iskood isku xilqaamay kuwaas oo la magac baxay nala dhis oo nala dhame kuna howlan dhismaha iyo garab u raadinta garoonka ciyaaraha ee magaalada Burco ee loo magacaabo Lixle Stadium. haddaba qaar ka mid ah dhalinta oo baaq u jeedinaya cid walba oo gacan ka geysan karta dhismaha garoonkaasi ayaa ka rajeynaya sidoo kale madaxda Somaliland in il gooni ay ku eegto baahida dhismaha garoonkaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad baan u salaamayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee afka Soomaaliyeed ku hadasha meel walba ay joogaan adduunyada. waxaan si gaar ah u salaamayaa wariyeendos iyo bahda Universal TV. bacda salaam aad iyo laxad ay sharaf igu tahay inaan ka soo qayb galo farniintan loo gudbinayo bulshada ku hadasha afka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jeeda reer Somaliland gobolka Togdheer dadkii sportska danejray ahaa soo maray kuwa ku jira iyo taageerayaasha sportska. runtii halkan waxaan doonayaa inaan laba arrin oo isbarkan halkan uga diro. labada arrin oo ah ujeedka kulankaygani nooca uu dareeyahay ay tahay inaanu marka hore taageerno guddida gacanta ku haysa garoonka ka socda magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer. garoonkaas oo runtii ah garoonkii labaad ee gobolka oo ay wariyeen bilaabeenna niman dhalinyaro oo iskood iyagu isku magacaabay oo runtii abaal iyo ajarba aan ugu hayno arrinta ilaahayna ugu rajeeyno inay maskaxda ay tuujiyeen wax ka khayr badan ugu bedelo. guddida magaceeda wax la yiraahdo nala dhiso nala dhame stadiumka labaad ee magaalada Burco wax la yiraahdo Lixle Stadium. garoonkaasi muddo ayuu ka socday magaalada Burco waxa uu soo socdaba waxa uu imika marayaa gunti iyo gabagabadii. runtii waxaan ku noolahay dalka la yiraahdo Qatar magaalada Dooxaan joognaa. waxay fariinteedani barbilow u tahay fariimo badan oo insha Allah aan rajeynayno inay ka soo burqadaan adduunka dacaladiisa wadamada Yurub iyo America Australia iyo Africa oo dhan dadkii soo maray gobolka Togdheer iyo dadka sportska danayaba waxa ay fariinteedani insha Allah aan rajeynayno inay u gaadho si fiican oo ay uga soo jawaabaan iyaguna sida ugu dhaqsaha badan leh. dadku way kala aragti duwanaan karaan arrimaha siyaasadda markaan la hadlo gaar ahaan reer Togdheer Burco laakiin waxa lagu kala aragtida duwan yahay waxa ka weyn waxa la wada leeyahay garoonkan magaalada Burco ka socda waa dantii guud waxa weeyaan halboolihii labaad ee gobolka Togdheer sida caadada u ah dadka reer Burco waa dad runtii markay wax wada qabsanayaanna wax isku ah oo wax wada qabsada waxyaabo fara badan oo kala duwan. taa micnaheeduna ma aha in aad iyo aad loo kala fog yahay. marka anigoo ah ciyaartooydii hore ka mid ahaa ee gobolka Togdheer soo maray magacaygana runtii la yiraahdo Maxamed Cabdi Daahir oo ku magac dheer Sibid xagga hore ee inaan ka sheego laakiin waxa weeyaan fariinteedaasi ee aan wado aan doonayo inay gaadho beelaha reer Burco oo dhan meel walba ay joogaan Somaliland ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daneynaya inuu khayr iyo ajar ku darsado arrintaas in contribution ka laga soo qayb qaato ay wado guddida nala dhis oo nala dhame oo runtii gabagabo maraya. waxaan leenahay u hore garoonka waxaad haysaan qof walba jeebka gacanta geli sidaan aan fariinta halkan uga soo dirnayna waxaan rajeynaynaa inay fariimo badan ka yimaadaan dunida dacaladeeda. waxaan si gaar ah ula hadlayaa sportskii hore ee gobolka. waxaan ognahay runtii inay gobolka Togdheer ka soo jeedaan niman fara badan oo adduunka ku kala daadsan qolo walba inay halkeeda isku abaabusho iyagoo group iyagoo kooxa iyagoo isku magaalooyina oo ay fariimaha noocaas oo kale ah soo gudbiyaan soo diraan social media soo geliyaan guddida ku soo taageeraan dhalinyarada runtii ee xuriyay barnaamijkan khayriga.
wax runtii lagu ammaano qof bilaadanana way sameeyeen oo halkii ugu sarreysay ee wax laga qabto ayay runtii dhalinyaradaasi ka bilowday wax ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay guddida nala dhisay nala dhamee wax kasii weyna markay hawshan dhammaystiraan ay usii bilaabaan oo aanay halkaa ku istaajin howlaha halkana runtii caawa fariinteedan inuntayadan iyo inan kaloo fara badan oo caawa naga habsaantay ama naga maqannaa waxay iyaduna sidaas si leegu rajaynaysaa ina ay wixii contribution ah ee jeeb ah sida ugu dhaqsaa badan la guddidii ula xidhiidhaan ay ugu diraan halkii ay joogaan iyo halkii lagu shugi jiray wax waxaanu halka ka dirinaa baaq aan u dirayno adduunweynaha ummadda Soomaaliyeed ee joogta inay ka soo qayb qaataan garoonka Burco laga dhisayo oo ay uga qayb qaataan maxaan ku raahday inay wixii karaan ka soo qayb qaataan waxa garoonka gacanta ku haysta guddi isku xilqaantay iskeed oo guddiga la yiraahdo magacooda nala dhiso nala dhamee garoonkana lagu magacaabo Lixle Stadium wuxuu socday garoonkani muddo imika ilaa 7 bilood ilaa 8 bilood wuxuu marayaa gabagabadii garoonka waxa ka qayb qaatay dad fara badan in kala badan way hadhay intii ka qayb qaadatay waan uga mahadcelinaynaa inta kale aan wali ka qayb qaadan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan sida dawladda oo aan wali iyagu gacan ka geysan garoonka iyo mas'uuliyiin kale fara badanba waxa garoonka gudoomiye oo ah Maxamed Cabdi Xirsi iyo Nicola Xamse Maxamed. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed waxaan kamid ahay dhalinyarada sportka ee gobolka Togdheer baan kamid ahaa waxaan caawa halkan u fadhinaa arrintii garoonkii Lixle Stadium ay gacanta ku haysay guddidii nala dhisay oo nala dhamee uu hoggaanka u ahaa Maxamed Cabdi Xirsi iyo Captain Kafi waxa weeye waxaan caawa halkan baa ugu direynaa bulshada Somaliland iyo kuwa gobolka Togdheerba magaalada madaxdiisa Burco inay garoonka ka qayb qaataan sidii ay horeba uga qayb qaateen runtii garoonku meel fiican buu marayaa labadii waji hore way dhamaadeen hadda waxa la marayaa wajigii saddexaad oo ah gabagabadii marka waxaan caawa halkan baa ugu direynaa dhammaan bulshada gobolka Togdheer meel kasta ay joogto adduunka inay runtii gunaanadii ka soo qayb qaataan garoonka fariintana waxaan jecelahay in la sii wadaagtaan dadka kale ku nool daafaha adduunka sida Yurub, Mareykan iyo meel kastaba waxaan jecelahay in garoonka insha Allah bismillaahi kariim uu sida u dhaqsiya badan la uu dhamaado insha Allah bismillaahi kariim taasina way dhowdahay insha Allah bismillaahi kariim waxaan halkan uga mahadcelinayaa Windows iyo TV-ga Universal labadaba waxaan leeyahay insha Allah bismillaahi kariim annagu haddaan nahay dhalinyarada Dooxa sida aan soo agaysinay waxaan jecelahay in dhalinyarada kale adduunka daafiisa ku noolay ayaguna sida ay soo agaasimaan annagu mar hore qaaraan garoonka waan ku darnay insha Allah imikana waxaan doonayaa in hormuud noqono mar labaad aan ka qayb qaadano insha Allah bismillaahi kariim assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa Cabdi Maxamed oo farsamada ku magac dheer waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Windows iyo bahda Universal TV fariintan caawa halkan u fadhinaa waxay tahay waa garoonka magaalada Burco laga dhisayo Lixle Stadium oo ah garoonkii labaad ee magaalada loo sameynayo hore magaalada garoon qulay lahayd aad bay magaaladii u weynaatay maanta waxay maalintii ay xaafad walba ay yeelan lahayd garoon maanta ma aha maalintii ay Burco garoon kaliya ama mid labaad oo kaliya la hadal hayn lahaaba ay tahay marka waxaan aad iyo aad halkan horta uga mahadcelinayaa oo aan bogaadinayaa guddida dhalinyarada ah ee xilqaantay ee garoonka bilowday ee tusaalaha wacan horseeday nala dhiso nala dhamee Burco sidaynu naqaano inta badan waxyaabaha ka dhisan haday jaamacadeeda tahay haday bridgekeeda labaad tahay iyo meelaha danta guud oo dhan oo ka dhisan waxa lagu sameeyay iska wax u qabso garoonkana isagoo wadada raacay waxa weeye waa garoon iska wax u qabsaa oo dadka reer Togdheer gaar ahaan reer Burco ay ayagu iskooda dhisanayaan Burcana weligeedba iska wax u qabso hormuud bay ahayd marka waxaan ninka fariinta halkan u marinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Somaliland iyo reer Togdheerba
inay aada iyo aada uga qayb qaataan meel kasta oo ay dunida dacaladeeda ka joogaan. Abdiraxmaan Gabadi ahna dhalinyarada gobolka Togdheer imikana ku sugan dalka Qatar caasimada Dooxa. waxaan halkan baaq uga dirayaa dhalinyarada isku abaabushay ila dhis oo ila dhanne garoonka stadium lixle waxaa leeyahay yaan loo kala harin mar walba jiil kasta oo kaca yani waad ogtiin oo daroogada ayaa maanta ugu badan isticmaalkeeda laakiin kubaddu waa tayareynaysa dhibka iyo aafada ay nagu hayso daroogadu waxaa leeyahay yaan loo kala harin garoonka aad iyo aad baan u mahadsanyihiin inamada iskoodsu abaabulay qof kasta oo u dhashay gaar ahaan gobolka Togdheer hore waxa loogu yaqaanay gobolka Togdheer inuu iskii wax u qabsado isagoo dawladda waxba ka sugin waa gobolkii isagu dhistay biriishka hadday noqoto jaamacad oo kale waad garanaysaan iskeed ay qabteen dad isu abaabulay mar walba waxa nagu horeeyay abaabulka yaan garoonka loo kala tegin isagoo maraya wajigii saddexaad imikana waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa qof kasta oo soo gaaro baaqaasi in ay sii faafiyaan qof walbana wixii uu ka raayo isagu uu ku hagaajiyo guddida iskood isku xilqaantay ila dhis oo ila dhamee qof kasta oo sadaqa bixinaya waxaan oran lahaa garoonkaas yani wixii ay sadaqa haday ku noqoto jeebkaaga aad ka soo saarto ولنيود بنقولها هاي عيد كستو والد كي يعني ودريسا وح أحسانا كرون كان الله قلبان لي هاي عادي أدبان إني سلامي على مانتي شاقين المقالد waxay wax ku soo wada qabatay waxa ay iska wax u qabso iskaashi wada tashi iyo mar walba wada shaqeyn buuxda iyadoo taa laga duulayo runtii garoonkani maraaxilka uu soo maray iyo stageskiisa uu soo maray waa laga warramay imika waxa uu taagan yahay halkii ugu dambeysay oo ah barbarkay ka baxdaa waa bakeela qaleyn waxaan runtii leeyahay qolooyinka reer Burco ay magacayga iyo muuqayga garanaya sportskii ahaa taageerayaashii ahaa nimankii jeclaa ahaa in ay ka qayb qaataan af iyo hadal iyo qowl iyo qoraalba iyo jeebba hawshaas garoonka labaad ee Burco lagu dhameystirayo guud ahaan guddidan uu mahad celinayaa nala dhiso nala dhame gaar ahaanna waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha mar walba hogaaminaya garwadeenka waa Maxamuud Cabdi Xirsi waxaan leeyahay halkaas oo loogu sii dhawaado weeyaa guushu halkaa hore uga sii socda hore u sii dhaqaaqa anuguna wixii aan horena u soo bixinayna way socotay marka ugu dambaysa iyo imikaba waxaan rajeynaynaa inaanu ka soo qayb qaadano mar labaad iyo mar saddexaadba ragga runtii halkan fariinta ka diraya anigoo afkooda ku wada hadlaya si guud ugu hadlaya waxaanu ka mideysanahay inaanu ka qayb qaadano dhamaystirka garoonkan waxaanu leenahay guddida nala dhis oo nala dhame ballanteenu waa nala dhis oo nala dhame. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal subscribe saara channelka kalkaal sidoo kale ka barelka furasi aad ka mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya ee daawada bartan muuqaalada ay kula soo wadaag